tuulo ku taala gobolka Hatay ee koonfurta Turkiga ayaa waxa ku nool qoys lugaha iyo gacmaha ku socda sida xayawaanka oo kale. qoyskan lugaha iyo gacmaha ku socda ayaa waxa markii ugu horeysay saynisyaanadu heleen 2005 ilaa hadda waxa cilmi baarisyo iyo baaritaano ku wada saynisyaanada caalamka sababta keentay in qoyskani lugaha iyo gacmaha ku socdaan. qoyskan lugaha iyo gacmaha ku socda ayaa ka kooban 5 qof oo walaalo ah, halka 3 ay dumar yihiin 2na rag ay yihiin, iyadoo da'doodu u dhaxayso 18 jir ilaa 34 jir. arrinta kale ee yaabka leh ayaa ah labada waalid ee dhalay 5 qof in ay caadi yihiin oo labada lugood oo kaliya ay ku socdaan. base ogtahay in bini'aadamku 4 milyan oo sano ka hor in ay lugaha iyo gacmaha ku socon jireen, balse waxa la yaab ku noqotay saynisyaanadii baaritaanka waday in ilaa hadda ay jiraan dad lugaha iyo gacmaha ku socda 4 milyan oo sano kadib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن baaritaano caafimaad kadib waxa saynisyaanada iyo dhakhaatiirtu isku khilaafeen sababta keentay in lugaha iyo gacmaha ay ku socdaan 5 qof ee walaalaha ah, iyadoo dhakhtaradu ay ku doodayaan in ay tahay dhaawac maskaxda ka soo gaaray 5 qof isla markaana ay iska dhaxleen, halka saynisyaanadu ay aaminsan yihiin inay tahay hiddo iyo dhaxal ay ka keeneen 400 oo milyan oo sano ka hor tafiirtoodii. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين
نحن محرومون. balse waxaan la iska indho tiri karin in arrintan ay tahay mid mucjiso ah oo mudan in lagu waano qaato sababtoo ah labada lugood ee dadku ay ku socdaan waa ay ka fududahay 95% marka lagu socdo lugaha iyo gacmaha waana nimcooyinka ugu waaweyn ee bini'aadamka Rabbi siiyay in lugaha oo kaliya lagu socdo waa soo saaristii iyo codkii Cabdiraabeel dhammaantiin waad ku mahadsantihiin daawashadiina kulanti dambe oo xiiso leh waxaana idinla socodsiinayay anigoo Cabdiraabeel ah